madaxweynaha xilka ka sii degayay Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo galabta war qoraal soo saaray ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira doorashooyinkii 13 November ka qabsoomay Somaliland arrimaha ammaanka iyo sidoo kale arrimo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu amaanay qaabkii doorashadu ay qabsoontay waxaana uu sheegay inay ahayd mid indhaha caalamka soo jiidatay sidoo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu amaanay intii ololaha doorashooyinku ay socdeen sidii xisbiyada qaranka iyo taageerayaashooduba ay u dhaqmeen uguna soo bixeen ololaha doorashada madaxtinimo waxaana uu ku baaqay madaxweyne Silaanyo in la ilaaliyo ammaanka xasiloonida iyo wadajirka Somaliland ay ku soo nabad iyo caanamashay intii ay jirtay sidoo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu hambaliyo u jeediyay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo hawlwadeenadooda sidii ay u guteen xilka iyo waajibaadkii saarnaa waxaana uu kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan amaba guddoon jilicsan madaxweyne Silaanyo waxa uu shacabweynaha Somaliland ku hambaliyay sidii ay gacanta buuxdo u siiyeen ciidamada ammaanka qaranku sidii ay u damin lahaayeen shaqaqooyin maalintii shalay ahayd ka bilaabmay magaalooyin ka mid ah gobolada Somaliland sidoo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu amaanay ciidamada qaranka Somaliland oo uu ku tilmaamay geesiyaal sidii la rabay u gutay waajibaadkii ka saarnaa qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee Somaliland dhanka kale madaxweynaha xilka ka sii degayay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu tacsi u diray ehelada laba qof oo rayida oo ku geeriyooday rabshadihii shalay dhacay madaxweyne Silaanyo waxa uu sheegay inay reeban tahay in xusbi uu ku dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo inta ka horeysa inta guddida doorashooyinka Somaliland ay soo saarayaan natiijada rasmiga waxaana uu sidoo kale ka digay in taageerayaasha xusbiyadu ay sameeyaan dabaaldegyo amaba mudaharaadyo ka hor inta natiijadaasi aan lagu dhawaaqin waxaana madaxweyne Silaanyo laamaha ammaanka uu faray in cid kasta oo samaysa arrimahaasi la reebay loo baahan yahay in la horkeeno garsoorka iyo cadaaladda waxaana uu musharaxiinta xusbiyada ugu baaqay inay xakameeyaan cadhada iyo cadiifada taageerayaashooda dhinaca kale madaxweyne Silaanyo waxa uu sheegay in musharaxiintu ay u diyaar garoobaan guul iyo guul darraba Sagal Baldeeq Home Cable TV Hargeysa